السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنا ونكسن لما أخيارتا قيمها هي شرفتا هي كرامة مدنو ملكستو جوجتان وقت كاستيد انتهى وقت واحد وعنادو بدبادا iyo naxariista bana korkiina ha ahaato halkaad iga daawanaysaan aad igala socotaan waa channelkeena dabada wacan kusoo dhawaada barnaamijkii taxanaha ahaa aynu kaga hadli jirnay taariikhtii nabigeena Maxamed sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi dariskii shanaad ama qaybtii shanaad ama casharkii shanaad waxaanu ka hadlaynaa insha Allah ta'ala maanta aynu kaga hadli doonaa shan arrimood shan qodob aynu casharkiina maanta waxa weeyaan ku qaada dhigi doonaa wata koobaad waxaanu ka soo hadalnay nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ay waxa weeyaan Xaliimo wareejisay ay ku wareejisay hooyadii Aamina marka wareejintii ay wareejisay Xaliimo nabiga sallallahu alayhi wasallam la wareegitaankii ay kala wareegtay Aamina laba dhimashadii Aamina saddex kafaalaqaadkii awowgii afar dhimashadii awowgii shan iyo kafaalaqaadkii adeerkii waa tahay markii ay ku wareejisay Xaliimo nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii Aamina waxay ula jihaysatay ula kacday nabiga sallallahu alayhi wasallam xagga iyo Madiina ayay ula kacday waxay u socotay ay u tagtayna waxay ahayd soo siyaarasho iyo soo booqasho ay soo booqanaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii abtiyaashi ما هو النبي أبتياشي والنبي صلى الله عليه وسلم أبيه أبتياشي وأها أنصار واللورن شري غير بني عدي بن نجار لورن شري تبعتنا وحاولتي هاي ستي ملكي أي كوري جسي حليمو النبي صلى الله عليه وسلم مدينة يدو صوبة وقانيسا وسوسي يارانيسا النبي صلى الله عليه وسلم أبيه أبتياشي وصدنا حسني لورن جريرار بني عدي بن النجار كذب دحضة وحك وحلا شيء النبي صلى الله عليه وسلم هو يدي آمنة جيردي يحقي أيا دحضك وحلا شيء وحكول ماتي مشى لرضا أبواء هالكاس أيانا وحويان النبي صلى الله عليه وسلم هو يدي لغو عاصي مركز waxa safarka ku wehelinaysay oo la socotay islaantii markii hore xanaanaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo la oran jiray Ummu Ayman ayaa safarka loo helinaysay oo waxa weeyaan la socotay kadib geeri markii ay ku timiday nabiga sallallahu alayhi wasallam hooyadii waxa xilkii iyo mas'uuliyadii qaaday oo la wareegay nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgii Abdi Muttalib halkana waa kafaalaqaadkii awowgii Abdi Muttalib iyo isna dhimashadiisii ayaynu qodobkan saddexaad kaga hadlaynaa insha Allah ta'ala kadib gacanta waxa ku dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam awowgii oo kafaala qaaday markii hooyadii dhimatay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa awowgii ahaa mid aad ugu dabacsan oo waxa weeyaan aad ugu naxariis badan oo ugu dhibirsan oo ugu dabacsan waxa weeyaan aad u jecel dabacsani iyo dhibirsani aanu u dhibirsanin inuu dabacsanayn ubadkiisa u dhalay sababtuna waxay ahayd
markii uu arkay in nabiga sala allahu calayhi wasalam arrin weyn ay kusoo food leedahay ama ay kusoo socoto mustaqbal ahaan, balse isna ma uu sii noolaan oo waxa weeyaan ma uu sii noolaane isna tii xaqa ahayd ayaa u timiday oo waa u dhintay. markuu nabiga sala allahu calayhi wasalam hooyadii dhimatay waxa uu ahaa 6 sano ayaa u jiray. awowgiina nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu hayeyba 2 sano oo isna waxa uu dhintay isagoo nabiga sala allahu calayhi wasalam 8 sano jira. dabeetana maamuus iyo sharciyo waxa weeyaan qadarin iyo waxa weeyaan ayaa u muujiyey, balse intaasba isagoo u muujiyey ma ay sugin waqtigu ma uu ku simin intii xaqa ahayd ee ilaahay subxaana wa tacaala inoo ballan qaaday ayaa u timiday. isna waa uu geeriyooday isagoo oo marka waxa weeyaan 2 sano nabiga sala allahu calayhi wasalam kafaalo qaaday oo hayay ayaa isna waxa weeyaan nabiguna uu yahay 8 sano uu jiro ayuu awowgiina dhintay. kadib markii uu dhintay nabiga sala allahu calayhi wasalam awowgii, waa qodobka 5aad aynu casharkeena kusoo gabagabeyneyne, waxaa la wareegay oo kafaaladiisii adeerkii abi daalib. kadib adeerkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa kafaalo qaaday. waxa uu ahaa mid aada isaguna ugu naxariis badan uguna hiiliya. nabiga sala allahu calayhi wasalam aada buu jeclaa, aada baanu waxa weeyaan ugu hiilin jiray, aada baanu waxa weeyaan ugu naxariis badnaa. haddaba abi daalib waxa uu ahaa mid iska danyar ah oo xoolo badan aan lahayn oo waxa weeyaan iska waxa weeyaan danyar ah. alle subxaanahu wa tacaala ayaa maalkiisa iyo xoolihiisa u barakeeyey oo waxa weeyaan waxa uu noqday mid xoolihiisii alle subxaanahu wa tacaala u barakeeyey, hodan noqday, qani noqday. sidii markii xaliimaba ay nabiga sala allahu calayhi wasalam u barbaarinaysay intii uu la joogay ay ahaayeen kuwo waxa weeyaan barwaaqadu dabooshay iyo bashbash iyo barwaaqo ku nool ay u ahaayeen, ay u barakoobeen, ay u baraaroobeen, ayuu isaguna ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu siiyey iyo wixii yaray markaa lahaa alle subxaana wa tacaala u barakeeyey oo isna u noqday mid waxa weeyaan u barakoobeen. nabigu sala allahu calayhi wasalam intii adeerkii hayay wuxuu ahaa mid qanaaco u saaxiib ah iyo mid ka fogaada oo ka dheeraada waxa macno la-aanta ah, mid ka fogaada oo ka dheeraada waxa macno la-aanta ah ee inta badan caruurta ay ku mashquulaan waqtiga ay yaryihiin iyo ciyaalnimo ay ciyaalku ku mashquulaan. waqtiga cuntada la cunayo caruurta ayaa u soo raaci jiray, kadib inta ay caruurtu dhaqan waxay u leeyihiin caruurtu markay wax la siinayo inay buuqaan, inay qayliyaan, inuu midba waxa weeyaan ay midba mashquul ay galaan oo dadka ay mashquuliyaan waxa weeyaan midba xataa ay caruurtu cuntada kala boobaan waa marka ay yaryar yihiin. isagu waxaasoo dhan waxa weeyaan kumuu sifaysnayn, sifadiisuna ma ay ahayn. waxa uu ahaa mid qanaaco leh, inta ay caruurtu kala boobayaan wixii ilaahay subxaana wa tacaala markaa uga qoro ku qanacsan oo marka ka cuna ayaa u ahaa oo sifooyinkaas ma uu lahayn.
mid qanaaco u saaxiiba ayaa ahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. waxaanu sheegnay 5 arrimood ayaynu kaga soo hadalnay. waxa weeyaan qormadeena maanta oo ahayd qormadii 5aad, la wareegitaankii xaliimo kala wareegtay aamina nabiga sala allahu calayhi wasalam, iyo waxa weeyaan dhimashadii aamina iyo kafaalaqaadkii awowgii iyo dhimashadii awowgii iyo waxa weeyaan kafaalaqaadkii adeerkii. inta aynu ku kulmayno dariskan xiga, waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.